الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مدحوينه ku-xigeenka mas'uuliyiinta kale ee madashan fadhiya mid walba maqaamkiisa iyo mansabkiisa ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh ugu horreyn likulli maqaalin lahu maqaal waxaan u hambaliyaynayaa xisbiga kulmiye oo halkan ku qabsanaya shirkiisii golaha dhexe taa haddaan ka gudbo run ahaantii xisbi ama axsaab waxa ay astaan u tahay democracy waxay astaan u tahay dowladnimo waxay astaan u tahay bisayl siyaasadeed waxaan dhowaan isu maray wax adduunka loogu yeedho largest democracy dimuqraadiyada ugu ballaaran iyo the oldest democracy dimuqrasiga ugu da'da weyn caalamka waa hindiya iyo maraykanka run ahaantii waddanka hindiya aad ogtihiin populationkiisu inuu marayo 1 bilyan iyo 300 malyan dadkaas oo isugu jira dad waxaysta iyo dad faqiir oo inaga inaga liita kala diimaha kala luuqadaha qaar la hayb sooco dabaqado waxa isu haya oo hal goob ku wada nool waxa weeyaan waa democracy iyo dareen ay dareemayaan inay yihiin dad xora hal wadanna u wada nisbo sheeganaya doonistooda iyo ra'yigooda iyo fakarkoodana ku gudbinaya axsaab kala duwan axsaabta iyo democracygu qiimahaasay leedahay waana waxa runtii hadda maanta adduunku ilaa xad isku raacsan yahay lagaga badbaadi karo dagaallo sokeeye dhibaatooyin macaluul democracygaasi ma shaqaynaya mise ma shaqaynaya waa dood kale innaga waxaad moodaa inaynu runtii aad iyo aad ugu baahi badan nahay institutionska axsaabta iyo kuwan kale dowladnimoba inaynu xoojinno somaliland maanta waxay taagan tahay crossroad meesha waddooyinku iska jaraan laba waddo weyn hadday isjaraan afar waddaa ka baxda oo afarta jaan u kala baxda bartamahaynu taagan nahay midaynu qaadi lahayn 28 sano wax badan baa soo qabsoomay institutions dowladnimaa dhismay nabadgelyo iyo deganaanshaa la helay laakiin maanta challengeska ayna haystaa way badan yihiin internally externally kuwa bannaanka iyo kuwa guduhuba xaqiiqatanna labadaba waxaa bays oo asal u ah innaga midnimadeenna iyo dareen ay dareemayaan guud ahaan shacabka reer somaliland waddan ay wada leeyihiin oo ay wax ku leeyihiin oo ay u siman yihiin wax wada lahaansho dhaba arrintaas arrimaheenna dibadda maalmahan aynu hadal hayno oo hadafkeenna ugu weyn waa ictiraaf iyo inaynu helo goonisitaag waxaan aaminsanahay meeshuu ka bilaabmaa waa arrimaheenna gudaha sababtoo ah adduunku wuxuu ina eegayaa gudaheennu eegayaa dad midaysan ummad midaysan hal mida wada qanacsan cadaalad haysta ee qof walba xaqiisi ilaa xad ilaahay baa subxaanahu wa tacaala dadka ka qabtiri karaya uu helayo taa wayat adduunka iyo caalamka iyo regionkeedu baa qiimaynayaan laakiin haddii dhexdeennii buuq ka taagan yahay ama aynu kala soconno ama aynaan wada dareensanayn ownership iyo wada lahaansho dhaba inaynu waddankan wada leenahay waxa aynu bannaanka ka raadinaynaa way adkaanayaan wayna fogaanayaan waxaan ku soo koobayaa ama waqtiga ilaalinaya xisbiga maanta halkan ku shiraya xisbiga kulmiye mas-uuliyad weyn baa idin saaran weliba waxa ugu soo horreeya ugu muhiimsani waa doorashadii muddada aynu ka wada hadlaynay ee laga hadlayey ee golaha baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka doorashadaas mabda'iyan waataynu isla qaadanay in sanadkan intaanu dhammaan la qabto hawsha iyada arriixiddeeda hirgelinteeda u dulqaadkeeda u dhabar adaygeeda mas-uuliyaddaasi waxay saaran tahay kulmiye xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan iyo hoggaan ahaanba maanta idinkaa taladii waddanka haya idinkaa muddada daabkeedii haya idinkaa resourcekii haya idinkaa resourcekii haya idinka ayaa markaa hawshaa hirgelin karaa wixii ka xumaada iyo wixii ka hagaaga ammaan iyo eedba idinkaa yeelanaya arrintaa waa inaad dareensanaataan
dulqaad badan baa la idinka baahan yahay waxa weeyaan ninku markuu reer weyn yahay dulqaad iyo daskuwad baa looga baahan yahay dulqaadkaas ciddii cabanaysa ama gar ama gardarro waa laga yaabaa mararka qaarkood in gardarro lagu cawdo laakiin madax buuxin iyo madax salaax iyo dulqaad ayaa laga gudbi karaa xaaladaha idinku jirno aad maan idin salaamaya waa mahadsantihiin